xirfidkan aadka weyn ayaa wuxuu rabaa caawa inuu saaxiibadiisa casho u sameeyo. Wuxuu soo qabtay nin, sidoo kale waxaa meesha u saaran waa 2 doofaar oo yaryar ah. Marka wuxuu rabaa intaas inuu casho ugu dhigo. Wuu soo qaaday, bur ayuu ku buubuuray, kadibna wuxuu rabaa inuu asiga dhanba dubo si uu casho ugu dhigtaan asiga asxaabtiisa. Sidoo kale meesha waxaa ugu xiran gabadh yar. Ninkan wuxuu rabaa inuu gabadha badbaadiyo. Gabadha ayuu u yimid, wuu la hadlay, birtaas ayuu rabaa inuu siibo, dabeedna shabaqa uu ka bixiyo, laakiinse wuu awoodi waayey. Ninkii weynaa asiga waxba wuu iska raraadsanayaa. Wuxuu rabaa ninkan iyo 2dan doofaar aad u jeedaan inuu dubto, caawa casho ka dhigto. Kii yaraa baa raba inuu badbaadiyo, mindidii ayuu hoos ugu dhiibay, dabeedna wuu dhuuntay. Kadib maxaa dhacay? Wuxuu soo qaatay qorihii uu ku sursuri lahaa, kadibna hawshiisa ayuu bilaabay. Dhankaas iyo foornada ayuu geliyay. Waa u jeedaan maamulena. Saaxiibkiina foornada ayaa la gashtay. Sigoo nool ayaa la rabaa in la dubo. Kadib wuu soo baxay. Wiilkii weli wuu dadaalayaa, laakiin ilaa hadda waxba ma u suuragelin. Kadib mindi ayuu soo siibtay, wuxuu soo qaatay qudaar. Qudaartan ayuu rabaa inuu jarjarto. Wuu ka jarjaray. Gabadhii way yaaban tahay. Adiga ku xigta ayaa la soo baxay. Waxay ismartiyeen. Gabadhii wuu soo qabtay, banaanka wuu soo baxay. Marka wuxuu rabaa inuu iyadiina jarjaro sidii qudaarta u jarjaro. Laakiinse jeeg ayaa gadaal ka imaanaya. Isla mindidiisii ayuu kala soo kordhiganayaa, sidaas ayuuna bahalkii weynaa ku dhimanayaa. Waa u jeedaan maamulena bahalkii. Waa uu galgalanayaa dee. Khalaas waa tagiyay. Kuwiina sidaas ayay ku badbaadeen. Filimkan qaybihiisa kalena insha Allah waan soo gelin doonaa.